galabti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. haddaba waa habeennimo sabti axad soo galayso taariikhduna waa 18 bisha 7 2026. haddaba barnaamijkan ayaynu ku soo qaadanaynaa maanta sidaad ogtihiin waxaynu ku jirnay safar aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa intii noo soo ducaysay. waxaan leenahay waa idinka qabnaa ducadiina, annaguna waa idiin ducaynaynaa in ilaahay muraadkiina sahlo. safarkeena ilaahay si nabadgelya noogu dhameeyey. waxaan kusoo noqonnay magaalada London alxamdulilah. marka waa mahadsantihiin, si fiican baad noogu soo ducayseen, annaguna waan idiin ducaynaynaa. waayahay, haddaba marka barnaamijka waxaynu marka hore ku faahfaahinaynaa xaaladda bariga dhexe, maadaama saaka inaan barnaamij soo gelin oo barnaamijkii annagoo airportka jooga aan xoogaa ka soo qaatay, kii galabkii aynu soo qaadanin. marka kan caawa waa inaynu wixii lagu kala calaf qaatay aan idiin soo gudbiyo. haddaba sida ay wax u dhaceen caadada sida noo ahayd waxaynu ku bilaabaynaa qolo walba markeeda waxa ay sheegatay ayaan sheegaynaa. maraykanka ayaanu marka hore ku bilaabaynaa. haddaba wararkii ugu dambeeyey markaa waxay sheegayaan in maraykanku ay sheegeen taliska dhexe ee ciidamada maraykanka la yidhaahdo CENTCOM inay ku dhawaaqeen inay soo gabagabeeyeen oo ay dhammaystireen wareegii kale ee 7 oo ay weeraro ku qaadayeen Iiraan. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa leeyahay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka la yidhaahdo CENTCOM sabtida maanta waxay sheegeen inay soo dhammaystireen oo ay soo gabagabeeyeen mawjadii ugu dambeysay weeraro xalay soo bilowday oo ay ku qaadayeen Iiraan. haddaba weeraradaasi waxay sheegeen inay ahayd habeenkii 7 oo isku xiga. haddaba CENTCOM waxay sheegeen warbixin ay ku daabaceen boggooda X la yiraahdo ama Twitterka in weeraradaasi ay ku bartilmaameedsadeen goobaha muhiimka ah iyo meelaha ay leeyihiin logistika militariga iyo awoodaha ciidanka badda Iiraan. waxay sheegeen taliska dhexe ciidamada maraykanka inay markaa Iiraaniyiinta ay mas-uuliyadda arrintaa qaadi doonaan. waxaana ay sheegeen inay sii wadaan ciidamada maraykanka xayiraadda ay ku hayaan dekedaha Iiraan. haddaba maraykanku waxay sheegeen mawjado isxigxigay oo duqaymo ah inay ka geysteen gudaha dalkaasi Iiraan. waxaana sheegeen meelaha ay weerarada ku qaadeen inay ka mid tahay Tahraan iyo weliba magaalooyin kale. waxaana la sheegay in weeraradaasi ay markaasi yihiin kuwo lagu wiiqayo awoodda ciidamada Iiraan si markaa Iiraan ay u joojiso weerarka ay ku hayso marinbiyoodka Hormuz. Iiraan waa la duqeeyey xalay mawjadii 7 la yiraahdaa, macnaha 7 habeenoo isku xigto xalay ilaa maanta macnaha soo socotay ayay ahayd. marka xisaabtii xalay ayaa la xiray maanta. marka waa 7 habeenoo isku xigta ayaa la garaacayaa Iiraan. iyaduna marka maxay samaynaysaa? saldhigyadiisa iyaduna garaacaysaa. marka maraykanku marka waxay yidhahdeen weeraradii ugu dambeeyey waxaynu ku bartilmaameysaday meelaha logistiga ciidamada badda Iiraan iyo ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaynu baabah ka dhignay si aynu u nusqaamino awoodda ciidankaas. marka maraykanku waxay leeyihiin guulu noogu dhammaaday weerarkii 7 oo isku xigay oo aanu ku beegsanayno Iiraan. casharkii maraykanka marka halkaasuu ku xiray. waxaa noo soo haray nimankii Iiraaniyiinta ahaa. iyaguna marka maxay sheegeen? haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyey, Iiraan iyaduna waxay sheegtay inay duqaysay saldhigyada militariga maraykanka ee khaliijka iyadoo ka jawaabaysa bartilmaameedka isxigxiga ee dhulkeeda lasoo bartilmaameedsanayay. Kuwait ayaa ku eedeysay Tahraan inay toos u bartilmaameedsatay weeraro cadownimaana ku soo qaaday goobaha muhiimka ah ee markaasi halbowlayaasha dhaqaalaha ah. Urdunna waxay sheegtay inay soo riday 4 ka mid ah
daroonka iiraan ay leedahay. haddaba waxaa la sheegayaa in iiraan ay sii wado weerarada ay ku hayso gobolka, gaar ahaan kuwait iyo urdun iyo baxrayn oo ay weeraro cusub ku qaaday iyadoo kaga jawaabaysa weerarada maraykanka uu ku hayo ee uu ku soo qaaday dalkeeda. iyaduna waxay bartilmaamaysanaysaa iiraan sida ay sheegtay goobaha maraykanku ka degan yahay dalalkaas. kuwait oo kale waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen makhaasiin rasaas iyo hub ay ku kaydsanayeen ciidamada maraykanka, waxaana la yidhaahdaa qaacidada ama saldhigga la yidhaahdo adeerac. waxaa sidoo kale la sheegay in la weeraray mar kale saldhigga la yidhaahdo cali al saalim ee kuwait ku yaalla oo ciidamada maraykanku ay halkaa degan yihiin. waxay sidoo kale iiraaniyiintu sheegeen inay bartilmaameedsadeen oo ay garaaceen saldhigga ciidamada cirka maraykanka ay ku leeyihiin baxrayn. haddaba wararkaas waxay sheegayaan wakaaladda wararka ee kuwait waxay toos u cambaareynaysaa iiraan. waxay leedahay waxay beegsanaysaa iiraan halbowlayaasha dhaqaalaha meelo aanu maraykanku shaqaba ku lahayn oo dad rayda ayay markaa baabi'inayaan. waaye xisaabtaasu marka waxaa sheeganaya nimankan laleeyahay iiraaniyiinta iyaguna inay saldhigyadaasi baabi'iyeen oo ay weerareen. isla waxaynu ku jirnaa iiraan wararkeediyaa ku jirnaa. wakaaladda wararka ee anadol ee turkiga ayaa iyaduna goordhow waxay qortay warbixin ay leedahay iiraan waxay joojisay 4 markab oo isku dayayay inay maraan marinbiyoodka hormus, iyadoo ku joojisay weliba sawaariikh iyo daroonis ayay ku joojisaa la leeyahay. haddaba warbixintu way sii socotay. ciidamada badda ee taageersan ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay 4 markab oo isku dayayay inay maraan marinbiyoodka hormus oo taageerayeen maraykanka inay marsiyaan rabeen. halkaas ayay iiraan joojisay kadib markii ay ku garaacday gantaalo iyo diyaaradaha darooniska ah. ciidamada badda ee ilaalada kacaanka iiraan ayaa sabtida maanta sheegay inay 4 markab ee maraykanku doonayay inuu gudbiyo ay ka hor istaageen ayna garaaceen. ilaa hadda lama sheegin huwiyada ama cidda iska leh maraakiibtaas ay iiraan duqaysay oo maraykanku uu doonayay inuu halkaasi ka gudbiyo. hawshaasu markaa intaasay qabteen iyaguna, macnaha intii aynu kala maqnayn, macnaha xalay kasoo bilow ilaa hadeer intaas iyo taasaa dhacdaa la leeyahay. waataa warbixino kale oo waxaa jiray saakay aan orod idinku kusoo gudbiyey xataa sacuudiga in la yidhi gantaala lagu riday balastiga oo saldhig maraykanku halkaa ka joogeen ayaa lagu dhuftay la leeyahay. marka xiisadu markuu aaday u kacsan tahay hawshaasu halkaasee mareen. maraykanka marka war soo saaray galabta wuxuu leeyahay muwaadiniintayda waxaan uga digayaa inay u safraan israa'iil. israa'iil lama aadi karo, waa khatar, danger waayo. iiraana ku socoto markaas. iiraan waxay hadda u rabtaa inay cagta mariso goobaha muhiimka israa'iil. maba sugaysaa lagu leeyahay inay israa'iil soo weerarto iyo waxaas maba sugayso. marka maraykanku marka muxuu leeyahay muwaadiniintayda yeeshe isku tegin israa'iil. israa'iil waa khatar, waa meel halis badan uu leeyahay, waa lagu soo socdaa. haddaba marka aan idin tuso warkaas oo isaguna war weyna oo goordhow soo dhacay, washington waxay uga digtay ayaa la leeyahay muwaadiniinteeda inay u safraan israa'iil. safaaradda maraykanka uu ku leeyahay israa'iil ayaa sheegtay maanta in markaasi hay-adaha ammaanka ee bariga dhexe ay markaasi xiisada oo sii kululaanaysa gobolkaasi ay keenayso dhibaato, waxaana lagu amray dadka maraykanka ah inaanay aadi karin israa'iil. haddaba wararku waxay intaa ku darayaan in safaaradda maraykanka ay sheegtay in dadka maraykanka ah aan loo ogolayn inay safar ku tagaan xilligan israa'iil. waayahay
sheekadaasu iyaduna halkaas ayay maraysaa oo macnaha meeshii ugu xumayd ayay iyaduna ku socotaa. marka xaalka guud ee dagaalku marku waa kaas weli waa laysku midiya afaysanayaa. maraykanka hadda waraan arkayay wuxuu lahaa buniya taxtiya annaga ma burburinin, macnaha goobaha halbowlayaasha dhaqaalaha ee dadka iyo adeegyada bulshada iyo kama taabanin iiraan. marka iiraan waxay leedahay waa beentis, tareenka meeshiisa iyo bundadii dadka isku socdeen haddii la burburiyo maxay tahay? soo ma aha meelihii halbowlayaashay leedahay. marka arrinkaasaa marka isaguna socda. dhanka kale maraykanka waxa ay doonayaan dagaalka inuu sii kululaanayo, way arkaan. waxay dalbadeen diyaaradaha waaweyn ee maaragtay qaada shidaalka inay yimaadaan marka israa'iil inay kusoo degaan oo halkaa ay kasoo kacaan. marka sheekadu marka halkaasee iyaduna joogtaa ay maraysaa. ugu dambayntii barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaynaa sheeko kale oo cajiib ah. ninka la yidhaahdo mamadani waa nin bakistaaniya oo maraykana oo hadda maayirka ah new york oo muslina. wuxuu leeyahay waxaan sugayaa netanyahu inuu September yimaado halkan. September waxaa la qabtaa marka shirka guud ee qaramada midoobay madaxda caalamka oo dhan halka ay tagaan qodbada laga jeediyaa. netanyahu marka wuxuu niyadda ku hayay inuu meesha tago. wuxuu yiri haddaa cag soo dhigto niyo xabsiya ku yaqaan taramayga ka aliyo. marka dad badan oo waxaa la yiri arika ma ku dhaca oo ku dhaca ma hare xabsi u dhaadhicina li taram xataa ma ka ali karo. sheeko walna barka bash ka socota. haddaba marka aad tusoo wararkii ugu dambeeyay warbaahinta ay sheekada ka qoreen. haddaba waxaa la sheegayaa mamadani inuu markaa sheegay inay ka go'an tahay inuu xiro netanyahu haddii uu yimaado magaalada si uu uga qayb galo shirka guud ee qaramada midoobay. haddaba walaac fara badan ayaa israa'iiliyiinta arrinkaasi uu ku abuuray tallaabadan. haddaba israa'iil waxay ku eedaysay mamadani inuu taageero u yahay xamaas sida ay sheegeen. haddaba wargeyska la yidhaahdo New York Times ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa wuxuu qoray cadadkiisii maanta oo sabti ah soo baxay in maayarka magaalada New York Zahran Mamadani ninka la yidhaahdo uu sheegay in markaa uu suuragal ay tahay in la qabto oo la xiro ra'iisul wasaare Netanyahu haddii uu soo xaadiro shirka qaramada midoobay ee guud ee dhacaya bishii September ee soo socota. wuxuu yiri ninkan inuu banaanka sii jooga maba ahaba, ninkan xabsi wax ku leeyahay xasuuqa uu u geystay Falastiiniyiinta darteed. ninka Zahran Mamadani nin caadiya ba ninkii hadda meel uu aado leeyahay shirkii September waa kaasi ma u taagay yab soba maraykankii gudihiisii ayaa ninka looga dhaaranaya. marka sheekadaas iyaduna waxaa qoray laga soo xigtay wargeyska la yiraahdo New York Times. haddaba wararkaas ayaynu ku soo qaadanay barnaamijkeedii caawa. raalli ahada maanta safar baan ahaa, barnaamijkii galabta iyo kii subaxii iyo waxbaa naga baabaaqday. adinkuna waad ku mahadsantihiin ducada noogu soo ducayseen safarka in ilaahay uu noo fududeeyay. ilaahay runtii waa noo fududeeyay. adinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin intii soo ducaysay iyaguna waan u ducaynaynaa. waxaan leenahay ilaahu muraadkooda sahal. waa mahadsantihiin asxaabay. inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.